noloshu waa dariiq dheer oo jeexan. dariiqa dheer ee jeexan waxay nagu weheliyaa waa dad badan bay nagu weheliyaa. dadka nagu wehelinaya waxaa kamid ah faamilkeenu ka dhalanay, waa waalidkii, waa walaalaheen, waa deriskii, waa asxaabtii, waa ciyaalkii xaafadda isla soo korteen, waa dadka isla shaqaynaysiin, waa asxaabtaadii qaaliga ahayd ee tiraahdeen a brother amba a sister from another mother. ingiriisigaygu waa jajabe. dariiqan dheer ee laynoo jeexee nolosha ah ee safarkaynu ku jirno waxaad u aragtaa picture ka samayso waa sidii camal station aad usii socoto oo kale. waad aragteen markaad bas raacdo, metro raacdo, tareen raacdo, stoobyo badan buu ku joogsadaa. dad baa ka dhaadhaca, dad baa soo kora. hadday dhacdo qof noloshaada ku jiray oo aad kala hadhaan, murugadaada waa normal inaad ka murugooto, waayo feeling baad leedahay, waayo waxaad leedahay shucuur baad leedahay, dareen baad leedahay, ibni aadan baad tahay, dad ka murugoon kartaa. laakiin murugadaasi inayna kugu sii fogaanin, inayna oqdad kugu noqonin, inayna nacayb kugu noqonin, ee waxaad ka soo qaadaa qof walbo noloshaada soo galay oo kaa hadhay amba adigu aad ka hadhay, inuu qofkani intii ilaahay kugu talagalay ee ku jirtay macaani, ay ku jirtay xiriir wanaagsan, wax walboo fiican oo qofkan lagugu talagalay inaad ka hesho amba adigu aad siiso amba aad kala sheergaraysataan, intii loogu talagalay wuu ku soo gaarsiiyey. kaba soo qaad station B amba C baad ku socotay, qofkani station B buu ka soo koray, station C buu kaaga dhacay amba stop B buu ka soo koray, stop C buu kaaga dhacay amba D buu kaaga dhacay. marka intii loogu talagalay macaani ee qofkani uu kugu wehelinayay nolosha, intii loogu talagalay waad ka heshay. sax ka soo qaad, sidaa u fikir. dad baa jira noloshaada soo galaya oo kula gaadhaya ilaa final destination, ilaa aad ka gaboobaysid, ilaa adduunkan aad ka tegaysid. wuu jirayaa dad noloshaada ku jiri doona. laakiin hadday dhacdo istobyaasha badan ee final destinationka ka horeeya inaad dad kaaga hadhaan amba adigu aad kaga hadho, yayna kugu noqon uqdad, yayna kugu noqon nacayb, yayna kalsooni daro kugu ridin. ee waxaad u qaadataa qofka noloshaada ku soo biiray ee bartaa kaaga haray amba adigu aad ka hadhay, amba wanaag ku kala hadha oo kala dhoofa oo tacliin kala taga, amba waayaha adduunku inay kala mashquuliyo, amba hadha ku kala dhaqaaqa. waxay doonasaba ha noqoto, qofkan wanaagii uu kuu hayay ee lagugu talagalay ee lagugu soo dhiibay intaasay ku ekay. marka alxamdulilah dhe, waa qof noloshii kugu wehelinaya from B to D amba E. meel buu ku joogsaday, haba ku joogsaday qofkaas hadduu tareenkaa ka dhaadhaco, dee waad aragteen stop walba dad baa soo kora. maalin kastoo soo toosto arsaaqadaada way socotaa. arsaaqadu lacagun maaha, arsaaqadu waa caafimaadka, arsaaqadu waa dadka wanaagsan oo ilaahay kugu deeqayo, arsaaqadu waxa weeyaan cuntadaad helayso, arsaaqadu waa dharkaad xidhanayso, arsaaqadu waa farxadda. marka aroor walbaad soo toosto waa inaad faraxdo, waa inaad ilaahay u mahad celiso, waayo tareenkaaganaad wadato dad baa kugu wehelinaya. waxaan rajeynayaa topicana si fiican idinku micneeyay. waa topic very important, sababtoo ah ibni aadanku waa xaqu ka tallaabsan kari waayo markay waxyaalaha qaar ay ku dhacaan, sida markay qof isku dhacaan, sida markay dee shaqo waayaan oo shaqadu ka raago, waa halku badayaa ka fikiro. laakiin haddaad sidan u fahanto arrimaha, wax kasta insha allah way kuu fududaanayaan. cilaaqaadka dadka la yeeranayso iyo saa dadka ula dhaqmayso way kuu fududaan doonaan. nafta mar walba dhiirigeli, nafta sasab, nafta rajogeli. markaad nafta sasabtee rajogelisa dhiirigeliso iyo wax kula qabanaysaa. haddii la idhaahdo aad baa idin salaamayaa. asalaamu calaykum.